ajandayaasha shirka ugu waaweyn waxa kamid ah warbixinta amniga oo laga dhageystay wasaaradda amniga halkaas ay ku soo bandhigtay weerarkii ugu dambeeyay ee argagixisada ay ku qaadeen Israa'iil oo soo bandhigay taliyaha booliska golaha wasiiradu wuxuu si aad u bogaadiyay laamaha ammaanka sida ay uga falceliyeen ama ay ula falgaleen weerarkii argagixisada ahaa halkaas isku dayga ay rabeen in dadkaas shacabka meesha ay ku waxyeeleeyaan golaha wasiirada wuxuu aad u bogaadiyay sida shacabka Soomaaliyeed ay ugu soo badbaadiyeen ciidamada booliska iyo dhammaan laamaha amniga qaybihiisa kala duwan sidoo kale ajandihii ugu weyn waxa kamid ah golaha wasiirada wuxuu aad u bogaadiyay geedi socodka dib u yagleelida ama dib u dhiska maamulka Galmudug golaha wasiirada waxa ay bogaadiyeen dadaalkii heshiiskii lala gaaray ahlu sunna wal jamaa ay soo afmeereysay caqabadii hortaagnaa maamulkaasi dib u dhiskiisa sidoo kale golaha wasiirada wuxuu maanta ansixiyay hindisa sharciyeedka difaaca qaranka Soomaaliyeed sidoo kale wuxuu ansixiyay siyaasadda shaqo abuurka qaranka sidoo kale golaha wasiiradu waxay ansixiyeen xeerka hay'adaha aan dawliga ahayn sidoo kale waxa la ansixiyay xeerka cafiska dadka isku soo dhiibo dawladda waxyaabaha kala dheeriga ah ee meesha shirka golaha wasiirada looga hadlo waxa kamid ah ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Kheyre waxa uu faray guddiga fatahaadaha iyo maareynta masiibooyinka in si degdeg ah ay u gurmadaan fatahaadihii ka dhacay degmada Afgooye iyo sidoo kale degmada Caluula si dhaqsi ah loo gaaro shacabka Soomaaliyeed ee halkaas ay dhibaatada ku haysato